maamulka Jubaland oo kamid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee yeesha diyaarad iyagu ay si gaar ah u leeyihiin kadib xayiraado xoogan oo ay ku soo rogtay dawladda federaalka ee Soomaaliya. saraakiil ka tirsan maamulkaasi ayaa waxay shaaciyeen in diyaaradaasi oo ah mid cusub ay dhawaan soo iibsadeen iyadoo la sheegay in sababta ugu weyn ay tahay in la jabiyo xayiraada dawladda federaalka ay ku soo rogtay Kismaayo, iyadoo la sheegay in loogu talagalay inay qaado wafuudda ka qayb galaysa caleemasaarka madaxweynaha Jubaland ayaa ku qasbanaatay inay soo iibsato diyaaradan kadib markii dawladda federaalka ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha rayidka ah inaysan Kismaayo tagi karin iyagoo aan soo marin magaalada Muqdisho. madaxweyne ku-xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay soo dhaweynta wafdigaasi ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay wafdiga soo gaaray magaalada Kismaayo, isagoo xusay in nasiib ay u yeesheen wafdigaasi inay ku soo beegmaan xilli Jubaland ay soo iibsatay diyaarad iyagoo ay si gaar ah u leeyihiin. dawladda Soomaaliya ma lahan awood ay diyaarad ugu joojiso tagista Kismaayo, balse waxa ay awood u leedahay in diyaaradii tagtaa halkaasi ay ka mamnuucdo Muqdisho, maadaama Muqdisho tahay magaalada ugu weyn ee muhiimka u ah shirkadaha diyaaradaha ganacsiga ee sida gaarka ah loo leeyahay. shirkaduhu ma awoodaan in ay lumiyaan, sidaas darteed ayay ku qasbanaadeen inay qaataan amarka dawladda. diyaaradda cusub ee Jubaland soo iibsatay waxay la micno tahay in aysan qabin cabsi la mid ah shirkadaha diyaaradaha ee sida gaarka ah loo leeyahay. khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa cirka isku shareeray, iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin xoogan oo ay doonayso inay ku cadaadiso Jubaland, iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi ay hore u shaaciyeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay cunqabatayn ku rogtay maamulka Jubaland ee fadhigiisu yahay magaalada